wax sixin leh. halkan waxaan ku haystaa subag, waa butter, waa waxa weeyaan qolada yahay wax weeyaan sii kala akhriyayna. warkaas si fiican dhehna ma aragtaan wanaga si fiican idin tusay. waxa weeye axad ciyaalkii baa fadhiya, dee waa ciyaalkeennii qiladooda ka raaleehaada. ayaan shiilayaa, adiguna waad shiilan karaysaa. haddaanad waddankii joogin oo sixinta waddankaaga haysanin, waddankaad joogto subagiisa ayaad soo iibsanaysaa. subagaa fadhiya ee sidan u xidhan ka bilaab milixda ah ee walaashay iska shiilo. sixin waad haysataa marka waa lo waxaad ku darsanaysaa bariiska markaad karinaysaa, casiimadaha baad ku daraysaa. aad ayuu ku anfacaya. يا قرفة لو وحي hooyooyinkeed ku dari jireen ma haystee iyo hayl ayaan anugu ku darsanayaa suuqoon igu noqdo. haylka caaradan ka yar kala furayaa in yar wada kasaas u soo kareeyo. saliidda isaga ka fiican suuqna jira la yahay organic uu yahay, suuqa wax lagu dardaran uu yahay. yara walaaq yaan gunta kaaga dhegin. muqbadoo qalala haddii waddankii lagaaga keeno kaasun baad u samaysanaysaa, ku darsanaysaa. inta muqmad iyo subagga jecel ayaan u sheegaya.
خلاص dabka u gaabi haddaba halka ugu dambaysa dabka ka dhig soo ma aragtid saas u subageeni u kari jiray markii hooyooyinkay samayn jireen markaasuu saa u samayn jiray xanto waxaad aragtaa subagga wakaa hadda dabkii waan ka damiyeyba dabkii wax yar ka bacdi waan ka shubayaa iyo rasu halkan waxaan ku haystaa shaandhaan ku riday abatishiwan waxaa soo dhacaya ayuu iga reebaysaa tiishoogu iga reebayaa oo malaynayaan tiishooga wax kale ugu riday waa kaa subagga saa ku soo baxay xabad kaliyo ahaa okay halkaasaa ku shubtay dabadaad iska dhiganaysaa ma kaa xumaanayo haddaad ka heshay like share and comment thank you for watching جزاكم الله خير السلام عليكم